يا 10 دقيقة 10 دقيقة waxaan rabaa hal aayad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maamulkiisa iyo awoodiisa uu ku muujinayo oo la rabo qofka muuminka inuu rumeeyo aan rabaa inaan idala share gareeyo idinkana share gareysaan hadduu Ilaahay yiraahdo aayadaas waa qisada suuratu Yusuf aan ku soo qaadanay qolkan ama qolkan la xiriiray aayadaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay qaybta wallahu ghalibun ala amri walakin akthara an-nas la ya'lamun khusooyinka kooban aan rabaa oo 2 ilaa 3 u badato oo aan idiin sheegayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maamulkiisa in cidna aan faragelin karin oo wax walba sida Ilaahay uu maamulay ee u dhacayaan laakiin anaga ma ogin qorshahaas Ilaahay aydan waxa ka hadlaysaa qorshe Ilaahay inuu jiro bini aadamku wuxuu arkaa indhihiisa ku dhacaan marka qaarkooda wax uu ka naxo marka qaarkooda wax uu ka walwalo marka qaarkooda wax uu ka cabsado laakiin waxaa laga yaabaa waxaas uu ka walwalayo ama uu ka cabsanayo in ay khayr ka dambeeyaan ama khayr inuu ku xigo ama khayr inay ku qorsoon yihiin marka qofka aayadan waxay bixinaysaa tarbiya ah inaad sugto oo aadan degdegin wal caaqibatu lil muttaqiin hadaa tahay qof Ilaahay ku xiran oo Ilaahay ka cabsanayo imtixaanaad hadaa ku jirto waxaan idinku bishaareynaya imtixaanaadkaasi waxa ugu dambeyntii inna ma'al usri yusra culays kasta oo ku haysta iyo imtixaan kasta aad ku jirtid hadaad mu'minad tahay ama hadaad mu'min tahay waa ka baxaysaa waxaa diilu ah aayadaasi aan soo akhriyay waxaa diilu ah aayada wal caaqibatu lil muttaqiin ugu dambeyntii maaragtay caaqibo wanaagsan oo ah ugu dambeyn wanaagsan oo lagu farxo waxaa helayo qofka taqwada badan ama gabadha taqwada badan waxaan tusaale u soo qaadanayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaam saa ula socotaan waqti waxaa dhacday oo rasuulka calayhi salaam qaybkii wada ka soo sheekeynay magaaladii lagu ciriiriyey la dhibay quraysh diiday fariintii uu waday oo iyaga ay ku badbaadayeen oo naxariisna uu ahayd loogu naxariisanayo hadday raacaan in aan la cadaabi doonin oo Ilaahay uu naxariisan doono oo janno uu geyn doono wama arsalnaaka ilaa rahmatan lil caalamiin bal adduunka in ay ku raaxaysan doonaan qofka mu'minka raaxu ku jira hadda waxaana cadeen u ah qofka mu'minka oo digriga badan markasta digriga aan ka hadalnaa qofkaasi raaxa adduunu ku jira waxaana tafsiirka suuratu rahmaan haddaa akhrisaan aayad waxaa ku jirto oo imaamka ibn taymiya uu dhahay way jirtaa janno adduuna jirto oo qofka uu galo waa laga yaabaa gadaal inaad ka gashaan waxaa laga yaabaa in maaragtay Ilaahay degdeg jannadaas uu idiin siiyo laakiin quraanka lagu sheegay wa amma man khafa maqama rabbih rala hada wa amma man khafa maqama rabbih jannatan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qofkii maqaamka Ilaahay uu mudan yahay Ilaahay wuxuu mudan yahay maqaam uu leeyahay maqaam uluhiyya in isaga kaliya ilaah uu yahay oo wax kala dabirayo oo si wax u socdaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maamulayo oo xikmado badan ay ku qarsoon yihiin xikmadahaas faraha badan oo ku qarsoon Ilaahay idin barakeeye adi hadda ma ogaan karto waxa laga yaabaa gadaal inaad ka ogaato waxaan tusaale u soo qaadanaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan dhahay waxaa jirtay sanad loo bixiyay sanadkii murugada caamul xusn waxaa dhacday in xaaskiisa ay dhimatay waxaa dhacday isla sanadkaasi adeer oo ximaayo u ahaa rasuulka ilaalin jiray inuu dhintay waxaa dhacday in quraysh ay ka hor timid markay arkeen rasuulka inuu tabartiisa ay yaraatay awoodii xaaskiisa waxay awood aad u weyn sababta qof business leh
dhaqaale leh oo ladan haddana intaas waxaa usii dheeraa garabay u ahayd way la hadli jirtay waxay dhihi jirtay ilaahay kuma hoojinayo keligaa ma tihid tasliya u samayn jirtay qofkii garabku ahaa rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaam go-ay garabkayga midig markay dhimatay calayhi salaatu wasalaam saasuu yiri adeerkii gaal isagoo ah laakiin waa laga cabsan jiray isaga jiritaankiisa rasuulku laguma dhiiran karin marka intaas ay dhacday rasuulka karinimo u dareemay marka nabigu wuu cararay calayhi salaam magaaladii wuu ka tegey zayd uu ka haystay wuxuu aaday taa'if dadkii taa'if oo uu rajaynaya inay soo dhoweeyaan dhagaxay kala daaleen markaas isagoo dhiig baxayo wuxuu ku dhacay beer ka mid a beeraha beertaas markuu ku dhacay rasuulka oo dhiig baxayo oo aad dhibaato ka muuqato ayaa waxaa u yimid jibriil ama waxaa u yimid malaa'igta oo ilaahay subxaana wa tacaala u xil saaray buuraha inay maamulaan marka malaa'igtaas markay u timid waxay yidhaahdeen anaga ilaahana soo diray waxaana la amray inaan sameyno waxaad rabto marka kuwan saan kuu galay oo kheyrka aad u waday kugu bedelay inay kula dagaalamaan labada buur oo u dhaxaysa magaaladan inaan soo qaadno ma dur dhignaa markaas warkooda markaasa ugu dambeeya wuu diiday wuxuu dhahay dhabarkooda waxaan filayaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo saaro kuwa i rumayn doono marka fuyujur ka fikiraya gabadha mu'minada wiilka mu'minada meel fog inay ka fiiriyaan waay waxa hadda hortaada yaalo oo ku dhibaya ha fiirin waxaa fiirisaa waxa qarsoon oo imaan doono dadka badana waxaa u muuqda dhibka وعسى الله سبحانه وتعالى وحوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وحباط دب سنيسة وحاسور تقلعه إن نبقوا كوموخ أما عبسي أو في يجرأت كعب سنيست لكن إلهي وحكو ليهي وحا كل قرصون هذه لقاها له إيمان إيه صبر إيمان وحواية إن الرميس أدون كان إلهي إنه مأمره marka cid aad adoon u tahay oo kuma mushaynaysan jirin waa kow wallahu ghalibun ala amrihi walakina akthara an-nasi la ya'lamun ilahi qorshihiisa markasto najaxayo hormarayo isaga ghalib noqonayo laakiin dadka badankood ma og nabiga calayhi salaam wuu ogaa wuu yaqiinsanaa dhibkaas isagoo ku jiro magaaladu ku noqon waay marka waa loo diiday inuu galo nin magantiisu ku galay xitaa muslim maahan ninkaasaa quraysh la hadlay waa magaalada u dhashay war ha ku soo noqdo uu ogolaado markuu soo laabtay ilaahay subxana wa taala wuuba kaxeeyeyba rasuulka waxaa lasoo tusiyey janna lasoo tusiyey calayhi salaatu wasalaam waa taqaanaan ama waa maqasheen alisraa walmicraaj nebi yuusuf haddaa dib u noqday taariikhda ambiyada nebi yuusuf calayhi salaam isagoo yar oo ilmo ah ayaa lagu tuuray ceel البير وعيل واي عيل فوق قفك لو تورو نول رجا كما لها هذا عيل كما لا سو ساري ادونا لا دغاي هذا اسغو ماركتي لكن وحو ادون كان او ku noqday xagee boqorka gurigiisa hadana dambiga madaxa loo saaray gurigii boqorka laga soo saaray xabsi ala dhigay xabsi oo dhowr sano uu ku jiray هذا حبسه كسو بحي والله غالب على أمره إلهي سبحانه وتعالى وحبوه وتاسو مجيد مركاسي وحبر نقضيبا عزيز مصر نينك مصر وطن أنا نينكو مصر أيو نقضي سوى النبي مركا تاسنا قصة كلاوه مركا هالكاسم حكم وقضي أود إلهي سبحانه وتعالى ما ملكي سئي خرشه كلي إنو سعوناي ما ogtahay adiga maya inaan rumayso waajib miya ha dhib haddii uu ku qabsado ama wax ka maaragtay ka nixinayo ama welwel ku gelinayo hadday timaado maxaad leedahay aayadaas akhri wallahu ghalibun ala amri walakina akthara annaasi laa yaclamuun culamada qaarkood waxay dhaheen werdi ahaan ku celceli aayadaas والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والإله سبحانه وتعالى قرشيهيس غالب لقنايا دكتبون كذا مؤذى ولوحون لقنايا
si khayr ku jiro adiga oo khayr kugu jiro laakiin ilaahay labuu kaa rabaa labadaasaan ku celcelinaya caawan maanta oo dhan waa maxay labadaasi aliimaanu inaad rumayso bilaqdaari aqdaarta qorsheysan oo ilaahay uu qariyey inaad rumayso kow laba waxaa lagaa rabaa xusnu dhan inaad mala wanaajiso ilaahay inuu kuu qariyey khayr fara badan hooyaa tahay ilmaha leedahay ilmaha qaaraa caasi kugu noqdeen ama qaaraa ku dhibayo ama qaaraa xanuunsanayo haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay haddaad sabarto ilaahay wuxuu ballan qaaday in oo aad rumayntaas samayso ilaahay inuu khayr kugu bedelayo waxa ku haysta isooyinku waa badan yihiin laakiin waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda markuu ku waafajinayo tawfiiqdaasi waa 3 tawfiiqda sabarka inaad sabarto oo aad sugto sabarka waxaa qofku wuxuu sugayaa maamo waaye ama aabbo waaye gurigaa dhib ka jiro haweentii waxaa dhib ku hayo ninkeedii haweenaad raad ii timid waxay dhahday khalaas waa sabray 12 sano meeqa ilmaa leedahay intaasoo ilmaan leeyahay ilmahaaga waa meeqo daadoodii 12 jiro waay dii 12 jiraa soo sabartay ilaahay adduunkan ma dhibin waxaan dhammaanaynin adduunku wuu dhammaanayaa haddii oo ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa u sabarto khayruu kugu bedelayaa oo ah janno ilaahay dartiisa u sabar maxamed waxay dhahda waa adagta inaan sabro والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقدم بينتي حداد صبرته إلهي وحوكو قريي وح خير بدن أدقو فرحي دونتو لكن سوق محالة قربا كو إن أدرو ما يسو أقدارت إلهي سبحانه وتعالى لبا أقدارت سمرك أدرو ما يسكدي إن قرشها إلهي غالب ونقنايو 3 حسن الظن سمي حسن الظن إلهي ملو وناج إلهي ملديسة أنا مرض هذا أو إلهي حكيس وناج وحن ننحى مليسا قفك مؤمن كأ حسن الظن يسمى أو سميا نبي عليه الصلاة والسلام نبي وحسوري إلهي سبحانه وتعالى حدث القدس ولها أنا عند حسن ظن عبدي بي أنيجا أدون كي روحو إيجا ملايستان سينايا هذا إلهي خير كما ليس خير كسينايا ولقى إلهي سبحانه وتعالى شرح كما ليس كعل علي آيداسي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون امتحانك أدونك وبذيه امتحانك أدونك وبذيه دارتان قدرنا دار الامتحان دارتان معها دار الجزاء انت أبال منين كما جرته هرسوغين إن وحبابا أدكو فرحضه أو إن أدعركت وجنة هدايت وكاد ورهن لكن جنة سعكو قرينا أيو مركا آد إلهي وردي جوكتا آد سميسوتو أنك لقول لهنا عرب كاد إلهي سبحانه وتعالى كليا أكو حسته إلهي سبحانه وتعالى وحي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر إلهي أولو العليو وحي كينيسا قلبي إنه الدقاء راحيسته لذلك ساسوا علماء يقولها ولمن قاف مقام ربه جنتان قفكي عبسيدة إلهي ومدنيها وكعبسيدة جنة في الدنيا وقلايا وجنة في الآخرة مركا جنة أدونكم عليه ضماها إن العقبة ضن عادية لنيس لكن قلبي دقن وقضو وراحة كجرة قلبي رسول إلهي كوافة جنايا سأوها شمعها شردئة وكنا قنينا inaad qadarka ilaahay markasta rumaysato wixii dhaco hore u sii soco ilaa asaas u qadaray alxamdulilah dheh laba dhibka ku sabar inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab aakhiro markii dadka loo xisaabinayo ajarkii thawaabka adi laguma xisaabinayo sababta waa sabartay 3 malada ilaahay wanaaji wax walba wanaagsan ilaahay ka filo waxaad arkaysaa waxaas ilaahay inuu ku siinayo laakiin waxaa lagaa rabaa qalbi xaarnaan عربكاga نظيف دغاga نظيف indhaha wax khayrka inaa ku fiirinaysid meel khayr ah qof aadayo noqo ka soo laabanayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi